السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله عبد الرحمن يا عشرة هنون. maantana waxaan ka hadli doonaa laba arrimood oo muhiim ah runtii aad iyo aad u muhiim ah waxaana weeyaan shaydaan iyo jin iyo shaydaan ma garanaysaa dhegeyste waxaan u malaynayaa qof walba oo naga mid ah uu jecel yahay inuu aqoon fiican ka helo shaydaan muxuu yahay jinkuna muxuu yahay waxa laga yaabaa inaad ka aaminsan tahay waxyaabo kala gedisan maxay ahaato dad wax u eg maxay ahaato duula waxyaaba noocaasa in laga aaminsan yahay wax aan marnaba suuragal aysan ahayn in la ogaado ama la arko macnaha laga baqo oo halis ah laakiin shayga haddii aad taqaano waxa uu yahay qaabka uu shaqeeyo iyo nooca uu yahay waa sahlanaanaysaa simbal inaad ka adkaato runtii allahna qur-aanka wuxuu ku leeyahay ina shaydaana lakum caduwan fatakhiduuhu caduwan ayuu ilahay leeyahay ina kayda shaydaani kaana daciifna meel kale ilahay ku leeyahay marka sideen ku ogaanaynaa anugu baaritaan dheer ayaan sameeyey baaritaankaasna waxaan isleeyahay run weeyaan isleeyahay ilaahay baa og xaqiiqda laakiin waxaan isleeyahay waa arrin muhiim ah oo loo baahan yahay qof walba inuu aqoon ka helo waxaana weeyaan haddaan ku yidhahdo dhegeysta shaydaan anugu waan aqaanaa jinna waan aqaanaa waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo waa waray war ninka waxbaa ka siiya bal ila soco maanta haddii ilaahay yidhaahdo kow waxaan xasuusanaynaa sida allah u sifeeyey shaydaan muxuu ku tilmaamay allah subxaanahu wa tacaala shaydaan allah qur-aanka wuxuu ku tilmaamay inuu yahay rajiim mar kale allah wuxuu ku tilmaamay inuu yahay saaqir inuu yahay saaqir inaka min asaaqiriin oo kaleeto mar kale allah wuxuu ku tilmaamay maarid inuu yahay saddexda macnoba saddex macno iskula dhow weeyaan isku mid ma ahan oo qur-aanka sideedaba laba shay oo isku mid ah isku meel maba ka hadlaba qur-aanku ma lahan wax isku dadka u malaya inay isku mid yihiin laakiin qur-aanku wax la yidhaha mutaraadifa ma lahan wax isku eg ma lahan oo noocaasa mid shay walba oo qur-aanka uu ka hadlo sidiisa ayuu sax ku yahay shaygaas waana gaar weeyaan marka rajiim iyo saaqir wax farqiyo weyn uma dhexeeyaan waxaana weeyaan rajiim waxaa la yidhahdaa waxa laisku dhajiyo oo lasoo dhuubaa la yidhahdaa la caateeyo saaqirkana waa mid la duleeyey oo hoos la geeyey oo darajadii laga rifay oo macnaha dhulka la geeyo ama la yareeyey oo yariis laga dhigay weeyaan wax aad u yar laga dhigay weeyaan maxay ahaato maaridna labadaba wuu noqon karaa maarid wuxuu noqon karaa wax weynin badan oo xoog badan oo meel walba gaari kara oo xoog badan aad u xoog badan wuxuu kaloo noqon karaa wax ducufa oo aad u liito madax adag oon weliba wax maqlin ayuu noqon karaa marka saddexaas shayba waa lagu tilmaamaa oo qur-aanku sifa noocaasuu ka bixinayaa idan jinka kuu soo hara jinku qur-aanku muxuu ka leeyahay jinka qur-aanku wuxuu ka leeyahay id antum ajinnatan fii buduuni ummahaatikum ayuu ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala jinka wuxuu qur-aanku u yaqaanaa wax qarsoon oo meel ku qarsoonoo meel ku kaydsan oo aan loo jeedin oo ishu aysan aad u qaban karin ayaa jin la yidhaahdaa marka id antum ajinnatan fii buduuni ummahaatikum qur-aanku markuu leeyahay meel kale wuxuu ku leeyahay falamaa janna calayhi acuudu billahi min ashaytaan arrajiim falamaa janna calayhi lleyl habeenkii markuu madoobeeyey oo qariyey macnaha habeenkii maalintii uu qariyey marka mugdigii noqota wixii dhammaay idan jinku waa meel wax mugdi ku dhex jira weeyaan jinku shaydaankuna waa wax yar yar oo aad iyo aad sakiir u ah ama rajiim u ah oo caatay oo yariisa weeyaan marka tilmaamaha noocaasa markaan ka amba qaadno exactly iyo tilmaamo tiro badan oo nabiga uu ka bixiyey sala allahu calayhi wasalam sida xadiiska ku sugan halkaan oo kaleeto oo sunanka oo idil ku sugan oo nabigu uu leeyahy sala allahu calayhi wasalam ina shaydaana yajri min ibni aadam majra dami ayuu leeyahay nabigu sala allahu calayhi wasalam shaydaanku wuxuu jirka bani aadamka ugu socdaa sida dhiigoo kaleeto meel kalena wuxuu leeyahay yabluqu min alinsaani mablaqa dami oo kaleeto inta dhiigu gaaroo kaleeto dhiigu shaydaankuna gaaraa marka axaadiistaas iyo aayadaha qur-aankaas sifooyinka ay ka bixinaya markii la isku soo daro xaasilkii waxaan helay anigu sida tan shaydaanku dhegeysta haddii aad doonayso xaqiiqada aadna doonayso inaad ka adkaato shaydaan exactly waxaad fahmaysaa shaydaanku inuu virus yahay viruska aan naqaano ee viruska la yidhaahdo oo hergebka uu ka mid yahay waa shaydaan weeyaan sababtu maxay tahay allah subxaanahu jalla wacalaa marnaba nooguma talagelin inaan xanuunsanno inaan maxay ahato dhibaato la kulanno mar walba oo xanuun uu kugu dhaco hergebna allah ka dhigee waxa weeyaan ciqaab weeyaan nooc ciqaab ka mida weeyaan inta badanna khalad adugu aad samaysa weeyaan khaladkaasoo ka imaanaya ama cibaado xumo oo xasuusta ilaahay ay kugu yaraatay ama ka imaanaya cunto khaldan ood cuntay waxaan ognahay aabbayaasheen xaawa iyo aadam shaydaana jannada ka soo saaray muxuu uga soo saaray bakteriyuu siiyey geed jiran ayuu yidhi cuna
markaasay ku sumoobeen geedkii wuxuu ka difaaci ay haysteen oo idil ayuu ka dul qaaday markaas waxay noqdeen kuwo u nugul shaydaankii u nugul oo shaydaanka inuu halakeeyo u nugulay noqdeen marka dad fara badana waxay u maleeyaan dhar ay xirraayeen inay ka siimeen dhar maahan meeshu waxa weeyaan macnawi weeyaan waxa weeyaan awooddii ay u lahaayeen inaysan dhimanin oo inay maxay iska difaacaan cudurrada iyo waxbaa noocaasa ayuu ka qaada shaydaanku intuu geed siiyey marka waa kaas ahaa jinka iyo shaydaankuna sidiisaba marna jinni weeyaan marna waa kaafir weeyaan shaydaanku maaha mushrik ogaadaya dad wax badan waxa laga yaabaa inaysan ogeyn laga yaabaa shaydaanku marna waa mushrik maahan laakiin waa kaafir billaah weeyaan marna waxaa la yidhaha qur-aanku wuxuu ku tilmaamaya inuu jinka ka mid noqday suura kaafi oo kaleeto aayadda 50 suuradda 18 aayadda 50 ayaa tilmaamaysa inuu jinnigu iyo shaydaanku ay isku mid noqdeen marka waxaan leeyahay bakteeriyada xun ee wax disha ee bani aadamka dhibaataysa waa shaydaanul jinni weeyaan bakteeriyada fiican ee aan cidna dilin ee dadka bani aadamka caawisana waxa weeyaan jinka kiisa mu'minka ah wanaagsan weeyaan sababto allah shay walba ee makhluuqaadkiisa uu noo duleeyey annaga ayuu wuxuu nooga dhigay addoommuu nooga dhigay malaa'igtu cidna kuma xadgudubto addoommada ilaahay ee bani aadamka malaa'igtu way u khuduucaan wayna u sujuudeen oo rabbiyaa ku amray inay daacad noo noqdaan shaydaan bisaa diiday oo inkiray arrintaas ka hor yimid shaydaan marka dagaaluu kugula jiraa had iyo jeeraale marka dhegaysta haddii aad doonayso inaad shaydaanka adkaato simbal waxaad samaynaysaa dikriga allahaad samaynaysaa waa qodobka koowaad aayadaan ku baraya haddii ilaahay yidhaahdo aayaddaas qur-aankaad akhriyaysaa shaydaanna arki maysid absoluut arki maysid ogaadana qof walba intuusan dembi samaynin wuu isla hadlaa qofku maskaxdiisa ula hadlaa markaasuu waxbuu isu sheegaa waxa uu la hadlaa waa virus weeyaan shaydaankii weeyaan markaasuu ku dhiirigeliyaa ama shahwo ku dhiirigeliyaa hore soo zinaysuu yidhaahdaa ama wax soo diluu yidhaahdaa ama maxay ahayd qofkan dhegeyso qof khariban ayuu yidhahdaa waxaana fiican balaayo u sheegaa markaasuu waa khalal maskaxda soo gala weeyaan laakiin aayaddan qur-aanka ee soo socota haddii aad akhriso biidni illaahi alkariim waad ka raysanaysaa insha allah shaydaanka waad ka raysanaysaa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسورة رعدي سورة اللي راهدو سورة 16 القرآن كآية 26 ربي وحورانيا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب exactly آية صدق النساء قفل بحفظ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب داخل النساء ورمات الشيطان ما يشتك صار تدي له يراهدو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قدر ساس سمي نساء شيطانك إنه ضدك بني آدم كه أو معناها فيروس هنا وحكوا قدر إلى أيضا قرآن كسورة سات كجرتا يمتكلوا كجرتا سورة اللي را سورة أنبياء واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أيوليه حسب لأدونك نجا أيوب هاي مركي أو إلهي وعوضي أو إلهي وشيطان أي التابطي وعذاب حن يدبات أبوهية عجيب ويان بل فير شيء أيضا شيطانكم من آدم كل أو تابتا سوق تابتا فيروس أهان أيو تابتا بكتيريا أهان أيو تابتا أسوق جنك أديك سنية أيو بكتيريا نقضى مرنا أسوق شيطانا أيو فيروس نقضى فيروس كان لبده ويكره runtii dawooyinku ma qaataan macnaha shaydaanka viruska wax la daweey kara maahan viruska waxa lagu daweey karaa imaa cuntada aad cunayso inaad hagaajiso iyo tasbiixda waa laba nooc qayb maadiya iyo qayb macnawiya weeyaan qaybta maadiga ah oo cuntada ka yimaada inta badan iyo nadaafada maxay ahayd qaybta macnawiga ah wuxuu ka yimaadaa maskaxda iyo khalal u galaa jirka shahwo ku abuuraya maskaxdu tashwiish ku furaya maxay ahayd dhibaato fara badan oo ku mashquulinaya markaas khalad samaynaysaa meeshaasuu kaa helay shaydaankii marka haddaad ogaato in maskaxdaada wax soo galeen oo balaayo u socoto waa inaad xasuustaa tiraa waa waray ninka odaga haya yimid saas ayaad waray kartaa haddii ilaahay yidhaahdo aayad kale oo cajiib ah rabaa inaan tuso haddii ilaahay yidhaahdo aayaddan rabbi wuxuu ku oranayaa in aladiina taqow idaa masahum daa'ifun min ashaydaani tadakkaruu fa idaa hum mubsiruun kuwa mutaqiinta ah markii shaydaan uu soo asiibo oo shaydaan koox u yimaado ilaahay bay xusaan way xasuustaan waaba iyagoo u jeedo leeyahay Allah subhanahu wa jalla wa ala ajiib weeyaan aydan fasirkeedu fantastic weeyaan marka macnuhu waxa weeyaan haddaad og tahay shaydaanku waxa uu samaynayo iyo qaabka u yimaado iyo qaabka u shaqeeyo exactly waad ka raysay markaas wuxuu noqonayaa in kayda shaydaani kaana daciif wuxuu ku yiri qof soo dil maya dheh saaxiib iga qalleeyda waa intimida ku jeedahay mid kale shaydaanku dadka uu gaadaa qof soo jeeda oo fahansan uma yimaado absolutely taas ogaadaya waxaan u maleynayaa inaad ka hesheen aqoon macquula oo idin anfici doonta haddii ilaahay yidhaahdo
haddii aad doonayso jinni iyo shaydaan inaad ogaato waxaad ogaataa inay yihiin virus iyo bacteria oo u kala baxaya bacteriyada u kala baxaysa qayb wanaagsan oo jinka wanaagsan ah iyo qayb xun oo ah shaydaanka jinka noqday ah ama maxaa shaydaanka jinka soo galay ah iyo viruska oon marnaba fiicnayn sidiisaba aan fiicnayn oo ah shaydaanka xaqiiqada haya isagoo wax kalena sii noqon kara kuwa weyn sii noqon kara marka sidaas ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo haddii aan khayr sheegay ilaahay baa i waafajiyey haddaan wax qaldana rabbigii cafisha dambi dhaafaan weydiisanayaa wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu